laakiin hadduu uurjiifku ay isku dhiig yihiin hooyadu wuu badbaadaa. Ciladani waa mid caalamku u wada siman yahay, waxaana looga hortagi karayaa in hooyadu la siiyo cirbad tilaal oo kale ah bilaha ugu dambeeya uurka, amaba isla marka ay dhasho, si difaaca jirkeedu loo hilmaansiiyo dhiigga uurjiifka, sidaasna uurka xigo oo ku badbaado. Nasiib xumo, hooyooyin badan lama soo xiriiraan xarumaha daryeelka hooyada iyo dhallaanka, amaba lagama helo cirbadda tilaalka meelaha ay ku nool yihiin. Sidaa darteed, arrintan dad badanne kuma baraarugsana. Hooyooyin badanne way ku waayaan carruurtooda iyagoo aanan ogeyn. Waxaana dhimashada carruurtaasi isku xigxiga loo saadaaliyaa in hooyadu la sixray, la ilaystay, amaba jinni hayo, khaasatan markuu ninka guursado haween kale oo ay u dhasho ilmo caafimaad qaba. Haddii hooyadu uur qaado iyadoo aanan cirbadaas la siinin, waa in ay la soo xiriirtaa xarumaha caafimaadka laga helo dhakhtar ku takhasusay uurjiifka iyo dhallaanka. Sababtoo ah waxaa laga yaabaa uurjiifkaasi in dhiig yari aad u daran ku dhacdo, markaasina oo u baahdo in dhiig lagu shubo isagoo uurka ku jiro, amaba in qaliin lagu dhaliyo waqti hore si loo badbaadiyo haddii sanbabadiisu ay koreen. Fadlan, haddii aad garanaysid hooyo carruur isku xigxiga iyagoo meyd ah dhashay, amaba foosha kadib dhinteen, ku wacyigeli jiritaanka xaaladdan si ay dhakhtar ula xiriirto, loona baaro nooca dhiiggeeda iyo kan ninkeeda. Haddii aad qabto su'aalo, fadlan noogu reeb commentiga hoostiisa. Dhammaantiinu waxaana idin rajaynayaa kheyr iyo caafimaad.